dalka Portugal waxa uu ka mid yahay wadamada aadka u facaweynaya qaaradda Yurub waa dal soo maray taariikh kala duwan iyo xilliyo aad u adkaa kelmadda Portugal waxay ka timid luqadda Greek oo ah Portuscale ama dhulkii ilaahiyada Roomaanka boqortooyooyin badan ayaa soo maamulay oo ay ka mid ahaayeen Roman Lusitania, Gallic, Islamic, Visigoths, Germanic Kingdom walow Islaamku yahay kan ugu waqtiga dheer ee soo maamulay dalka Portugal. Portugal waa dal madax bannaan oo ku taala jasiiradda Iberian ee koonfur galbeed Yurub waxayna waqooyi iyo bari xuduud kala wadaagtaa Spain halka koonfur iyo galbeedna ay ka xigto badweynta Atlantic. Magaca rasmiga ah ee loo yaqaan waa Jamhuuriyadda Portugal. Badka guud ee Portugal waa 92,000 kiiloomitir oo square ah. Portugal waa xubin ka mid ah Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub waxayna xubin ka mid ah Qaramada Midoobay soo aheetan iyo sanadii 1955. sidoo kale waxay ka mid tahay wadamadii aasaasay gaashaanbuurta NATO iyo ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta. xilliga la joogo waxa Portugal madaxweyne ka ah Marcelo Rebelo de Sousa halka ra'iisul wasaarahana uu yahay Antonio Costa. bishii January 2016 ayay ahayd markii Rebelo de Sousa loo doortay madaxweynaha Portugal wareegga koobaad ee codbixinta waana madaxweynaha labaatanaad oo ay yeelato Portugal. lacagta laga isticmaalo Portugal waa euro. dadka ku nool Portugal waxay tiradoodu gaaraysaa 10 milyan waana tiriko la sameeyay sanadgal. luqadda rasmiga ah ee dalka looga hadlana waa Portuguese. dadka Portugal asalkoodu waxay ka soo jeedaan Celtic people kuwaasoo Portugal deganaa boqor. Portugal waxay ka kooban tahay 28 gobol oo intooda ugu badan ay leeyihiin xukun hoosaad. 28 gobol ay Portugal ka kooban tahay dhanka badka waxa ugu weyn gobolka Beja waxaana ku soo xiga gobolka Évora. Lisbon waa caasimadda waddanka. qiyaastii 3 milyan oo qof ayaa ku nool Lisbon taasoo u dhiganta in boqolkiiba 27 dadka Portugal ku nool ay degan yihiin caasimadda Lisbon. Lisbon waa mid ka mid ah magaalada ugu da'da weyn caalamka iyo mid ugu da'da weyn galbeedka Yurub. Portugal waa wadan warshado leh oo alaab badan u dhoofisa dibadda. Portugal waxay fadhidaa kaalinta 36aad wadamada uu dhaqaalahoodu fiican yahay. 2023 Portugal waxay fadhidaa kaalinta 56aad dhanka dhaqaalaha balse sanadahan dambe laga soo bilaabo 2023 dhaqaalaha Portugal waa mid si xawli ah u koraya. wadanka Portugal oo wadan taariikh dheer leh waxaa soo maray boqortooyooyin oo ay ka mid tahay boqortooyadii Roomaanka Roman Empire taasoo Portugal soo weerartay sanadii 219 waxayna Romaaniyiintu Portugal maamulayeen 200 sano. boqortooyadii Roomaanka kadib Portugal waxaa sidoo kale soo martay boqortooyadii Suebi, the Kingdom of Suebi taasoo Portugal soo maamushay bilowga sanadkii 501 ilaa sanadii 711. boqortooyadii Suebi waxay asalkoodii ahaayeen qabiilo ka soo jeeda Jarmalka. sanadkii 501 ay weerar ku soo qaadeen jasiiradda Iberian ee Portugal iyadoo ay weeliyeen xulafadoodii the Sarmatians halkaas ayna ku asaaseen boqortooyadoodii the Kingdom of Suebi. dadka ku nool gudaha Portugal boqolkiiba 96 ka mid ah waa dad dhalada boqolkiiba 4na waa dad soo kaleetiya oo qaxoontiya. boqolkiiba 80 shacabka ku nool dalka Portugal waxay haystaan diinta Roman Catholic. boqolkiiba 3na waa Kristan, boqolkiiba 8na waa Islaam, halka 6 soo harina ay yihiin dad bilaa diina. waa dal ay baaxadiisa dhulku ay gaadhayso 29,252 kiiloomitir square waxaana bada 603 kiiloomitir. dalka Portugal waxaa qarniyo fara badan ka talinay dawlado Islaam ah iyadoo ilaa maanta aad arki karto raadadkii ay ka tageen. waqtiyadaasina Portugal waxa ay ku jirtay Spain iyadoo Islaamkuna ay u bixiyeen Andalus. muddooyinkii u dhexeeyay 712 ilaa 249 Portugal iyo Spain waxay ku jireen gacanta muslimiinta. qarniyadii ay khaliifadii muslimiintu ay ka ariminaysay Andalus Portugal waxa ay noqotay hormoodka xadaaradda adduunka. waxay lahayd magaalooyin camiran oo cilmiga gees walba yaallo. dawlado xooggan sida Roomaanka iyo Greegii hore ayaa aqoonta Andalus u soo raadsan jiray. sidoo kale waxaa ka jirtay maamul cashuurta laga ururin jiray dadka aan Islaamka ahayn ee deegaanka. caasimadda dalka ee Lisbon ama Lisboa waxay xarun u ahayd khaliifadii Andalus in ka badan 800 sano. waxay khaliifadu ku sii reebtay dhaqan aan weli guurin oo ay 15 February ay u dabaaldegaan maalinta loo yaqaan Carnival Day. waa dal fiisihiisu yahay mid sahlan qof kastoo muwaadinna waa mid haysta shaqo ku filan badanaana waa dal fursadaha shaqo ay yihiin mid sahlan oo ay ku yartahay shaqo la'aantu. waa dal wax soo saarkiisu ku tiirsan yahay falashada beeraha iyo wax soo saarka khudaarta sida tufaaxa iyo cinabka iyo midhaha kale.
waana dal ku tiirsan iibka sonkorta iyo khamriga red wine-ka oo adduunka looga sii iibgeeyo. saad ula socoto barnaamijyadana dambe subscribe garee.